munaasabadan oo ahayd xariirista ceelbiyoodka deegaanka Daarusalaam ee hoostaga degmada Xeraale oo dhaca bariga degmada Xeraale qiyaastiina u jira 24 kiiloomitir. deegaanka Daarusalaam waa meel ku habboon dhaqashada xoolaha waxayse ahayd caqabadaha ugu weyn ee haysta deegaanka biyaha oo la waayo ama gabaabsi noqda siiba marka la gaaro xilliga jiidaalka. Sheekh Cabdikariim Cali Aadan oo kaashanaya dadka deegaanka ayaa hirgeliyay ceelbiyood la filayo inuu wax weyn ka bedelo baahida biyo la'aanta ee hore uga jirtay deegaanka Daarusalaam. intaasi kadib munaasabadan xariga looga jarayo ceelbiyoodka laga hirgeliyay deegaanka Daarusalaam ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka diinta iyo awqaafta dawlad goboleedka Galmudug Xasan Cabdulqaadir, wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Axmed Cusmaan Aadan, xildhibaan Mursal Cabdiraxmaan, xildhibaan Cabdullaahi Ibraahim Ciise, agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha Cabdinaasir Cabdullaahi Jaamac, gudoomiyaha degmada Xeraale Bashiir Daahir Yuusuf, taliyihii hore ee booliiska dawlad goboleedka Galmudug General Cabdicasiis Yuusuf Aadan Dhagabadan, taliyayaasha booliiska degmooyinka Xeraale iyo Huurshe iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. ugu dambeyn waxaa xariga ka jaray ceelbiyoodkan laga hirgeliyay deegaanka Daarusalaam wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Axmed Cusmaan Aadan iyo waqaabta xildhibaano General Cabdicasiis iyo saldhigyada Huurshe iyo Xeraale taliyayaashoodii iyo odayaashii iyo culimada diinkii dhammaan halkaan ay ku sugan yihiin. waxaanu soo dhaweynaynaa oo si wanaagsan u soo dhaweynaynaa dawladda Galmudug madaxdeeda kala duwan oo galabta ceelkan furitaankiisa ka soo qayb gashay. waa soo dhaweynaynaa. waxaan kale oo dadka deriska iyo ehelka ugu baaqaynaa deegaankan hadda magaciisa la yiraahdo Daarusalaam oo ceelka laga hirgeliyay sida isaafgarad iyo wanaag loogu qoday kuwa kale oo la qodahayo oo dadka deriska hadalku ka jiro. waxaan ilaahay uga rajaynaynaa inuu wanaag ku dhammaadaan. waxaan ku soo dhaweynayaa wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha oo xariga nooga jari doona. aad baan ugu mahad celinaynaa dadkii ka qayb qaatay ceelkan qodidiisa iyo maaragtay hirgelintiisa. waxaan rajaynaynaa sidaas oo kale ceelasha markii la qodayo si isla afgarada isla ogolaanshaha heshiisa walaaltinimo deegaanka ah inay insha Allah arintaas ay ku dhacdo mid kasta. marka intaasaan ku soo gabagabeynaa wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha Galmudug ayaamahan waxay diidaal ugu jirtay in ay ka shaqeyso dhanka biyaha. way ogtihiin Galmudug ahaan dagaalada dhaca dhibaatooyinka jira badanaa waxay ka dhashaan biyaha la'aanta jirta waxay keentay ummadda inay ku diriraan biyo, in barkada lagu diriro, in ceel lagu diriro. marka waxaan rajaynaynaa in waxyaabahaas laga gudbi doono. waana u mahad celinaynaa dadka ka shaqeeyay inay dhistaan ceelkan oo si nabad ah heshiis lagu fuliyay. waxaan ugu baaqaynaa inta kale dhammaan qofkii raba inuu ceel qoto marka koowaad in uu wasaaradana la soo xiriiro, sida kalena ay ceelkii luqada ay lagu qodo wada tashi iyo heshiis in intii barkad yar la faafaago ummad nooga baabaado waxa macna ma soo kordhinayso. muhiimku waxa waaye biyaha la raadinayaa si nabad ah ku raadino. ceelkan oo kale hadii la hirgeliyo deegaan ama dhul aad u fallaaran baa xoolihiisu ku noolaan hayaan, beeraha ka hirgelaya, nabadgelya ka hirgelaysa. aad iyo aad waxaan leeyahay bulshada wixii horumar ah aad bay muhiim u tahay intii ka qabatayna ajar bay ka helayaan, inta kalena dhiirigelin iyo nolol kordhaysa u soo baxday weeye. waxaan u mahad celinayaa maamulka Galmudug oo waqti badan geliyay wasiiradiisa iyo hawlihiisa hirgelinta ceelkan, gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda biyaha oo si gaar ah isaga xilqaamay. waxaan ugu baaqayaa bulshada sida la wada ogyahay ceelkan iyo deegaankan hadda aan ku sugannahay waxaa in badan furitaankiisa iyo ka qaybgalkiisa ka wada qayb qaatay, ka wada hadlay, waqti badanna geliyay dadka degmooyinka Xeraale, Cawdaaq, Cadaado, Dhuusamareeb iyo inta ku dhex nool oo dhan baa in badan iskaga timid. sidoo kalena ceel kale iyo waqtiyo kale iyo nolol kale ka jirta. aad iyo aad waxaan inta ceelkan qoday iyo beesha halkan degta ugu baaqayaa dadka deegaanadan ku nool oo ceelkan markii horena ka wada hadlay haddana ku nacfin doona in la soo dhaweeyo. waxaan leeyahay ceelkii anagu ilaahay waana siiyey ceel aad u sharaf badan weeye oo biyihiisu macaan yihiin
haddana dhowr maalmood buu furnaa aniga hadda 7 waa ku sii dhowdahan u malaynayaa kara oo dawladda wasaaradaheeda iyo haddii la yiraahdana waxaan ka codsanaynaa in nalagu taageero haddii ilaahay yiraahdo intaas kadib waxaan leeyahay ilaahay ceelkii aan ku khayro oo ku guuleysanaha nooga dhigo waxaan kaloo leeyahay dadka islaamka ama hay'ada ama sukeeya ama dawlad ah ceelku waa ceelka hadda meesha cidlaha laga sameeyay dad baana qoday Cabdikariim baa ceelkan qoday waxaan leeyahay ceelka ka soo qayb gala ceelkaas wax ku bixiya aakhiradiina iyo adduunkiina waa ku khayraysaan intaasna waxaan u dirahayaa hay'adaha ku shaqada leh iyo maamulada iyo dadka shacabka ah ilaahay dartii wax ula baxaan waxaan leeyahay ceelka ka soo qayb gala wax ku Xuseen Cali Xuseen Sooyaal TV deegaanka Daarusalaam